بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان ummadda reer Somaliland halkan waxaa ka hadlayaa saaka anigoo ah injineer Maxamed Aybe Xirsi runtii uma soo talagelin inaan saaka leef soo galo laakiin waxaan daawaday oo aan xoogaa daawaday shirkii la odhanayay Ansaaru Sunna ee ka bilaabmay Hargeysa culimada Soomaalidu isugu timid ayaan daawaday isagoo leef Hargeysa laga furay markaas laajligeed waxaan damcay hadaba inaan fikradeyda wax yar aan ku darsado oo la wadaago ummadda reer Somaliland horta aniga Maxamed Aybe ahaan waxaan ka hadlaa wixii waddankeena u dana anaana isxilqaama dad badanna runtii hada goor su'aalay soo weydiiyaan horta aniga habeeraatee waxa weeyaan cid xil saarta howlahan wado ma jirto anigu haddaan ka sheekeeyo waxoogaa taariikhdayda anigu waxaan ka soo baxay jaamacaddii Gahayr Soomaaliya waqtigii ay labada gobol isku jireen qaybtii la odhan jiray kulliyadda kiimikada warshadaha ayaan ka soo baxay halkan Holland ayaan imid Hollandna course baan ka qaatay kiimikadii oo sii korsaday Belgiumkana isagana course kale ayaan ka qaatay oo ku saabsan chemicalkii waxaan kaloo wax ka bartay cilmiga beeraha oo ah ma aha yani theory yani cilmiga qofku sida uu u beerto beertiisa uu hagaajisto Allah musta'aan ciidda nafaqeynteeda la dagaalanka cayayaanka hab kiimikaal loola dagaalamo ama hab loola dagaalamo dabiiciya isulahaga ugu talagalay cayayaanka lagu yareeyo ayaan bartay markaas anu waxaan nin isxilqaama had iyo goorna wixii magaranaysaa waddanka ku saabsan ee wanaaga uun ka hadla xisbina kuma xidhni cidna kuma xidhni aniga ayaana istira taas waa hordhaca aan ka diyaariyey shakhsiyaddayda teeda labaad haddaan u gudagalo shirka maanta aan leefka ka daawaday sunna Ansaaru Sunna la magac baxay horta shirkan waxaa isku timid Soomaali badan baa isku timid wuxuu kulmiyey Soomaali culimadii Soomaalida kuwa koonfur Soomaali Talyaani ka yimid Kenya Djibouti meelo badan ayay iskaga kala yimaadeen waxaa kaloo yimid garaado iyo suldaano waxaa yimid ganacsato waxaa yimid siyaasiyiin oo ka mid ahaa wasiirkii awqaafta iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo xildhibaano iyo maayarkii aad iyo aad baa lagu fara badnaa maalintii ugu horreysay ahayd furitaankiisii waanu sii socon doonaa anugu ka hor dhici maayo shirkani wuxuu ku saabsanaan doona iyo wuxuu yahay iyo wuxuu ahaan doona laakiinse in yar ayaan rabaa inaan daba dhigo oo ah calaamatu su'aal calaamatu su'aalkaas oo ah horta Somaliland inagu waxaanu leenahay qadiyad ayaanu leenahay la soo noqoshadii jamhuuriyadda Somaliland oo cid kastaba ka dhaba sheekh xildhibaanka dayib la yidhaah ku caddeey ayaan heystiisa lagu sheegay maanta xildhibaankaasi ayaa ka hadlay meesha magaranaysaa kulankii ka hadlay waxaan u sheegay culimmadii wuxuu anagu mid baanu ku yar adagnahay xagga qadiyadda Somaliland aad baan ugu adagnahay marka haddii aad naga dareentaan adayg iyo waxaasi macnaheedu waxa waa xagga qadiyadda marka horta dad fara badan oo reer Somaliland ah alxamdulillaah rabbil caalamiin qadiyadda Somaliland way ku adag yihiin laakiin anigu kulankan waxaan ka digayaa inkastoo ogeyn kulankan culimmadu isku mid wuxuu ahaan doono mustaqbalka wuxuu la iman doono hase yeeshee waa kulan kulmiyey culimadii Soomaalida shanta Soomaaliyeed culimadana waxaa ku xiran ummadda islaamka ee Soomaalida ayaa ku xiran ummaddaasaynu ka mid nahay qadiyadna waynu leenahay qadiyadeenna in wax laynoo muuseeyo dee dooni mayno marka arrinkaan raba inaan daba dhigo halkan waxay tahay
sheekh bashiirka jabuuti oo ah sheekh fiican oo balaaqiya oo reer jabuutiya oo hadiyo goor ka hadla siyaasadda geeska iyo diintaba ka hadla ayaa sheekhaas ayaa markii muuse biixi uu jabuuti ka qayb galay shirkii abiy axmed uu waday ee farmaajo iyo lagu magarasa wada hadalsiinayay ayuu sheekhaasi ka faallooday markaa wuxuu yidhi war siyaasiyiintii waa isku mari weyday wadahadalladii somalilan ee soomaaliya bal xagga culimada ha loo wareejo xagga culimada ha la geeyo ayuu sheekhaasi yidhi markaa sheekhaasi waan u jawaabay facebook aan uga jawaabay anigoo tusaya waxaan ku yidhi sheekh qadiyadda somalilan kuma xidhna sheekh iyo shariif iyo madaxweyne waa arrin ay goosteen bulshada reer somalilan waxa weeyaan reer somalilan shacabka ayuunbay qadiyadani ka gooda markaan waxaan horta ka digayaa oon leeyahay shirarka caynkan oo kale ah haddii ay noqdaan shirar fiican oo diinta ku saabsan oo muhiima oo aan siyaasad ku salaysnayn way fiican tahay laakiin shirar muddo soconaya oo dhallinyaradeen loo tusayo sidaynu xaggaynu iskaga mid ka nahay innagii iyo soomaali talyaani oo waxa weya iminka adduunka dee waxyaabo badan isbeddelo badan baa jira shirar baa la bilaabaa loogu talagalay inay muddo socdaan oo ummadda loo tusayo in magaranaysaa ummaddaasi ay yacni wax wadaagaan marka shirkani anu waxaan ka digay ayaanu ku dambeynin culimadeena ayaanay shirkan xaggaa ula leexanin ah siyaasadda khilaafka inaga dhexeeya inagii soomaali talyaani waynu kula soo noqonnay qarinnimadeennii oo aan dhallinyarteena lagu abaabinin iyadoo diinta loo soo marayo isbahaysigii madoobaa ee aynu ku khasaarnay ee aynu ka qaadnay magaranaysaa dhibta iyo xasuuqa haddana iminka in si yaroo dhib yar laynugu yimaado oo magaranaysaa dee laynoo soo hoos galaa aana fiicnayn iyadoo laynoo soo marayo dadka madaxdeennii iminka waxaa ka hadlay sheekh khaliil baa ka hadlayay maayirkiiba la casuumay ninkii magaranaysaa guddoomiyihii golaha wakiilada wixii oo dhan ayaa meesha joogay waxaa joogay culimo badan oo magaranaysaa dee ka timid soomaali talyaani iyo nairobi ka timid dee nin kastaana culimadiisa ahaadee lakin hadda nin kastaana fikraddiisa ayuu aaminsan yahay nin kastaana fikrad haddii la weydiiya uu ka qabaa somalilan jiritaankeeda markaan halkan waxaan ka farayaa ummadda reer somalilan ku adkaada jiritaankiina iyo jiritaanka somalilan diintuna ma aha amase diinta islaamnimadu ma aha inaynu ku noqono mar labaad xamar islaamnimadu waa inaynu gurigan hagaajisano masaajidkeena aynu nabadgelyada u tegayno aynaan iska xumayn waa iminka ciidamaha inaga hortaagan soomaali talyaani oo dee halkaa tukaraq ciidamaha fadhiya oo xadkiina uu kontroolan yahay kontrool baa saaray xadka waxa weya haddii xadka kontroolka laga qaado oo inoo soo galaan qoladaasi de waxay noola imanayaan rabshadooda iyo qallaasahooda iyo amisom ba xitaa inoo soo gelaysa marka waxa weeyaan qadiyaddeena waa inagu ictiraafkeenna iyo wixiina ula kacnaa adduunka oo aynu samaysanaa allah mustacaan saaxiibo ka yeelanaa adduunyada si aynu u helno ictiraafka qadiyaddeenna oynu carruurteenna taa ka dhaadhicina maaha in carruurteena laga dhaadhiciyo yacni diintii loo tuso soomaali weyn iyo diintiina isku wada mid yihiin soomaali weynda waa shantaasi soomaali talyaani iyo soomaalida maanta nairobi inooga timid iyo kuwa xabashadu gumaysato iyo jabuuti danteeday noqoto kuma soo noqonayso dee somalilan danteeda ay qabsato iyana kusoo noqon mayso ilahay naguma celiyo allah mustacaan marka waxa weeyaan dee shantii soomaali la odhan jiray oo ina de labadaasi midna kenya hoos fadhiya midna etoobiya waa taimka ti etoobiya soomaali galbeed laynooga dhigayaba inuu yahay waa dowlad yaro madax bannaan oo la yaro muuseynayo oo ninkii barasaabka ahaa xitaa lagu sheegay madaxweyne marka arrimo badan ayaa socda oo khiyaamo ah ayaa ka socda geeska marka arrimahaas waxaan leeyahay Soomaaliya isha ku hayaan
culimmadu ishaa ku hayso siyaasiyiintu ishaa ku hayso shicibku ha ilaashadaan qarannimadooda taa intaasaan ka baxay waan ku dheeraaday maan jeclay aan ku dheeraado qodobka labaad ee aan rabay inaan ka hadlo haddii ilaahay subxaana watacaala ii ogolaado waxa weeyaan allah mustacaan furitaanka ururada saddex xisbi ee maanta jira in la bedelo oo xisbi yimaadaan gaar ahaan xisbiga waddani in la bedelo aad iyo aad bay u fiican tahay waayo xisbigan waddani waynu aragnay xitaa xildhibaanada ka soo baxay xildhibaano badan oo kala wareegsan oo hadlaya oon brotocool garanayn oo aan xitaa ixtiraam garanayn ayaa magarasa ka soo baxay waxaa inoo dhex fadhiya dad badan oo uu ka mid yahayna buuba oo maalintuu yimid hargeysa afkiisa laga hayo anigu waxaan rabaa soomaaliya inaan dadkeeda ka dhex bedelo gudaheeda markaan imaado ayaan dadka bedelaya marka mashaariic baa nagu socota process baa socda la rabo dadkeena in la kala furfuro la bedelo qabiil lagu kala furfuro xisbigan waddanina runtii waxyaaba badan kama xishoonayo waa kii jabhaddii caaro sameeyey allah mustacaan waa howlo fara badan ayuu ka galay magaranaysa xisbigan waddani waddanka rakaab fara badan baa ku jira waddani oo aan runtii ku habboonayn in ay yimaadaan madaxtinimada somalilan marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago waxaa waktigan saan uga dhigay ciwaanka daawada somalilan maanta daawadeedu waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ku dhiirado in uu furo ururadii si xisbiga waddani meesha uga baxo yimaadaana xisbiyo caafimaad qaba iminka waan arkayna maalin dhowtole ninka la yidhaha dahab oo xisbiga waddani ka tirsanaa oo u tartamaya madaxtinimada iyo ama guddoomiyenimada xisbiga waddani oo xisbiga waddani laga saaray waa kii inoo sheegay guddoomiye ciro ee uu lahaa maanta 18 May waddanka uu ka baxaa uu ka tagaa isaga ninka ugu dhow buu ahaa ee ka warhaya guddoomiye ciro marka wuxuu yidhi wuu ka tagaa allah mustacaan marka 18 May la gaaro wuu ka baxaa waddanka eedayn badan buu u soo jeediyey ninkaas la yidhaha dahab marka dahab ninkaas oo kale waa nin ku habboon inuu furto urur si uu uga qayb qaato magarasa madaxtinimada waddanka iyo niman badan oo xisbiga waddani ku jeesa duur oo kale rag badan oo caynkaas ayaa jira marka raggaa tusaale waxaan usoo qaadanayaa de waa niman ay qadiyadda somalilan ka go-an tahay marka dad badan oo caynkaas oo kalena way jiraan oo de xisbiyaha ku jiraan ama dibaddaba ha ka joogaan siyaasadde laakiin way jiraan dad fiican oo maanta dadka siyaasaddeena matelaya ee guddoomiyeyaasha ka xisbiyada ee ummadda qabiilka iyo kala qaybinta kula dhex jiray iyo waytalayda in laga qabto oo ururadii la furo saa darteed ayaan u arkaa maanta dawada keliya tii somalilan leedahay jiritaankeedu inuu yahay xisbiyada oo la furo oo xitaa tuunkan la tuunsan yahay maanta inay xisbiyada qaarkood sida waddani oo kale ay ku jiraan dad shisheeyaha gacmo shisheeyo cadowga somalilan ay gacanta kula jiraan ay magaranaysaa dee aynu ka saari karno meesha aynu ka yareyn karno marka madaxweynaha waxaan ku dhiirigelinayaa hadalkii waa badiyey madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaan ku dhiirigelinayaa inuu ugu dhaqsaha badan leh wuu seexay warqaddii wixii oo dhan uu u sii daayo uu u furo ummaddan yacni dabarka uga jiro u furo ururadii si ay u yimaadaan xisbiyo cusub iyo wejiyo cusub iyo dhig cusub waxaan kaloo kula talin lahaa inaan guurtida waktigan aan la bedelin xisbiyada dambe markay yimaadaan ee magaranaysaa la helo dee xisbiyo cusub iyo dad cusub iyo dad waxyaaba badan oo maanta socda ka nadiifa marka la helo markaasi loo diyaargaroobo habkii guurtida loo bedeli lahaa iyo si loo dooran lahaa iyo cidda imanaysa iyo shuruudaha lagu xidhayo taa in magaranaysaa loo gudagalo dhammaantiiba waan salaamayaa ummadda reer somalilan iyo asxaabta halkan ku jirtaba waan salaamayaa si guud baan idinka qaadaya sigaarba salaantiina waan salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu